بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى أيهم هذه أسقناتي انت حنوصنا الله عافيه انت عافيمات قبطنا الله الزيادية نعوذركنا الله نغض القاضي الدنيا قصي أي نكلا فوقيي يخشنا هذا أونلاين كدقة بسم الله الرحمن الرحيم waxaan sii wadan doonaa maadadeena psychology-ga ahayd baynu sii kaxayn doonaa ilaa haduu yiraahdo mawduuca kan maanta waxaynu kaga warramaynaa insha Allah qodob la yiraahdo specialities in psychology dabcan marka laga warramayo mawduuca kani waxaynu qawaaniga doonaa waxa la yiraahdo maadada tani ee psychology-ga la yiraahdo waxay leedahay meelo far badan oo iyaga kamid ah in lagu takhasusaadka maadada ayaynu insha Allah maanta qaar kamid ah ayaynu yara taaban doonaa waxa ugu horeeya developmental psychology dabcan hore ayaan u soo aragnay isaga inaguma cusba laakiin waa si yara taaban doonaa haduu alayno maxaa la yiraahdaa development psychology maxaa la yiraahdaa ama developmental psychology maxaa la yiraahdaa developmental psychology ga arkaysan waa broad field waa field kamida fieldiyada maadadu ay leedahay kaasoo waliba si qaas ah ama si gooni ah loogu takhasuso fieldigaasoo aad ula falgala oo u xiiseeya in badan inuu dhamaystiro ama daaweeyo dhibaatada insaanka kasoo gaadha xagga physicalka muuqaal ahaan iyo emotional dareen ahaan intellectual iyo waliba maskax ahaan sifaadkaasi oo qofka bini'aadanka ah uu leeyahay dhibaatooyinka ama inkii ciladaha kasoo gaaro xaqabtirkoodii ama dhamaystirkoodii ama daaweyntoodii ayay maadadu tani la falgashaa waliba dadka yar ee ku jira xilliga waxbarashada iyo xilliga koritaanka ayaa la yiraahdaa si kala marka loo dhigo maadada tani waxaynu ku sheegnay hore aysan ugu cusbayn maadada developmental psychology-ga la yiraahdo waa lan kamid ah cilmi nafsiga waxay inta badan carruurta waxbarata ama dadka waxbaranaya iyo waxaa la rabaa in lagu barbaariyo cilmi in lagu barbaariyo qof kasta waxa uu leeyahay talent asaga gudihiisa ku jiro ilmuhu markii ay yar yihiin waxay soo bandhigaan talentigooda ay soo bandhigaan laga yaabaa aan yiro adigu adashay inuu aad u xiiseeyo mobilkaaga inuu ku ciyaaro ama in aad uu u xiiseeyo laptop ama computer inuu ku ciyaaro ama in uu gaariga ku ciyaaro waxa uu soo bandhigaya canuga marka uu yar yahay in waxa asaga uu jecel yahay oo talent ah hobbigiisa ah in loo sameeyo wax u sahlaya faraha laga saaro lagu barbaariyo lagu dhiirigeliyo ayaa ahlaanta developmental psychology-ga waxa ay inoo tilmaamaysaa anaga si kale hadaynu u qeexno developmental psychology waxa la yiraahdaa waa barashada habka cilmiyeysan ee loo baranaya how and why human being change over course of lifetime waa oo barashada hab cilmiyeedka ogaanshaha sida bini'aadanka uu isku bedelo life span-kiisa ama noloshiisa inta uu nool yahay taasoo loo eegaya canuga sida uu ahaa infantigiisa ama carruurnimadiisa ilmuhu marka carruurnimada lagu toosiyo weyniguna way ku toosaan balse haday carruurnimada ay ku qalloocsamaan oo halka Soomaalida ay ka tiraahdo geedka inta uu yar yahay ayaa la toosiyaa hadii uu qalooc ku weynaadana toosintiisu jabid baa ku xigta oo halka Soomaalidu ay magarat warka war la mid ah ay ka tiraahdo marka developmental psychology-ga waa nooca inta aanan ka tilaabin developmental psychology-ga waxaan rabaa inaad adinku isweydiisaan maxaa la yiraahdaa developmental psychology waxaan rabaa inaad su'aalahaas aad ka jawaabtaan waxa la yiraahdo developmental psychology isla markaana inaad isweydiisaan aad ka jawaabtaan inuu baahanahay qof kasto ardayda kamid ah waxaan u baahanahay marka inuu isweydiiyo maxaa la yiraahdaa developmental psychology adigoo ka faa'iideysanaya mawduucan iyo mawduuc hore aan u sharaxayba then inaad ka jawaabto maxaa la yiraahdaa developmental psychology isku day afkaaga hooyo inaad xitaa aad ku qorto balse aad
micno guud u samayso waxa la yiraahdo developmental psychology adu alayno waxa aad uga agdhow developmental psychology-ga ahna fieldi madax banan ee lagu taqasuso waxa la yiraahdo educational psychology maxaa la yiraahdaa an educational psychology horta waxa la yiraahdaa waa fieldi ay ku taqasusaan dad cilmi nafsiyahana ah waa soo shaqadooda ay tahay caruurta wax baran weyday mentality ahaan aan dhamaystirnayn drop out studentska ah in ay caawiyaan isla markaana waxyaabo psychologically ah in loo sameeyo ayagu kuwa soo ka dhigaya kuwa quality ahaan iyo quantity ahaan ku wanaagsan waxbarashada waxbarashadooda wata drop out studentska ay aad ula falgalaan waa si guud waa cilmi loogu talagalay caruurta wax baranaysa wax baran weyday in lagu caawiyo si wax bartaan aan eegno an educational psychology waxaan sheegayaa micno kamid ah micnayaashu ay xambaarsan tahay ee ugu muhiimsan waan sheegin leedinka doonayo an educational psychologists dadka barta fieldiga caynkani oo kale ah had iyo goor waxay isticmaalaan subject matter ka isticmaalaan toolka isticmaalaan hadafkoodu muxuu yahay waa to help children caruurta inay ku caawiyaan caruurtaas soo ku jirta xilliga waxbarashada ama education system ku jira dadka educational psychologists ka barta had iyo goor waxay raadiyaan inay darsaan ama inay bartaan maskaxda muuqaalka guud ee qofka uu leeyahay haykalkiisa bulshada iyo dareenka qofka caruurtu ay leeyihiin ilaa ay dadka waaweyn waxayna had iyo goor aad u baahigoobaan in ay caawiyaan ama saameyn ay ku yeeshaan quality and the quantity of the learners dadka wax baranaya xil waxbarashada ku jiro inay caawiyaan si ay waxbarashadooda aysan uga hadhin caruurta markaynu u wada dirnaa waxbarashadu qaar baa very talented very active mental active shaqaysanaya aan fasalooda ka hareen qaarna waa from zero kuwaas ayaa u baahan educational psychology way u baahan kuwaas ayaa u sii baahan educational psychology waxaa loo arkay marka waxaa loo arkaaba inay tahaba waa fundamental discipline in education marka laga warramayo waxbarashada marka laga warramayo waa maadada ugu muhiimsan ee fundamental ka ah aasaaska ah dhabarka oo ah caruurta taasoo dadku ay baranayaan wayna shaqaysaa waxayna u shaqaysaa sida maadooyinka aad garanaysaan apostles iska leeyahay physics chemistry mathematics biology wixii la mid ah ama kuwa kale u taqaanaan applied science engineering architectural town planning iyo state management iyo food technology marka laga warramayo maadadani in badan cilmigii iyo orahdii iyo aqligii laga sheegay waxa ay magaratay ugu horeeyay muranadii iyo wada sheekaysigii dhaxmaray nin la yiraahdo change iyo palia argumentskoodii oo ahaa doorka macalinka uu ku leeyahay ardayga inuu wax bartaa iyo wixii la mid ah taasoo hadii goor ay kaga warramayeen sida psychologicalka ay saameyn ugu leedahay ardayga inuu wax barto psychology-ga aad saameyn ugu leedahay ardayga waxbarashadiisa aad saameyn ugu leedahay great waxaa jirta social psychology iyadana waa field kale ee aad loo darso oo aad loo barto oo idinka rabo inaad qixitaankeedii aad halka ku soo qortaan oo commentiga ku soo qortaan kuwa online ku qaadanaya kuwa class study-ga saameynayaan inay caadi u soo qoraan ee laga doonayaa educational psychology social psychology-ga marka laga warramayo iyana maxay tahay waa barashada social institutionska maadada ahayn oo la yiraahdo sociology ayaa waxaan ku sharaxnay waxa la yiraahdo social institutionka ama barashada insaanka guud ahaan maadada oo dhameystirana waan soo gelin doonaa insha Allah social psychology marka bulshada markaad eegto waa wada institutions bulshada waxay ka kooban tahay groups isu tagay familka waa group dadka ganacsatada waa group siyaasiyiintu waa group macallimiintu waa group education fieldiga ardada waa group ganacsatada waa group xisbiyadu waa group
bulshada marka waa maxay waa group isu tagay institution isu tagay dawladda waa institution ka ugu weyn psychology social psychology waxa la yiraahdaa waa social institutions waa sida waa barashada institutionada ay bulshada ka kooban tahay iyo sida ay saameyn ugu leeyihiin institutionada dhamaantood dabeecaduhu bini aadanka ama shakhsiyaadku ay leeyihiin had iyo goor waxa jira marka oo saameyn ku leh dadka external agencies ayaa saameyn ku leh TV-yada oo kale aad inoo saameeyaan musalsaladani socda aad wax kasta inoo saameeyo social media guud saameyntooda ayaa jirta social psychologists dadka fildiga darsa waxay aad ula falgalaan family waxa la yiraahdo the interest in family village iyo doorka head teacher or effect of the family background on achievement at school doorka waalidka uu ku leeyahay inuu ardayga guuleysto ama doorka macalinka uu ku leeyahay inuu guuleysto ama doorka qoyska uu ku leeyahay guusha ardayga uu gaarayo xilliga waxbarashada plan kale ayaa jirta ee la yiraahdo idan clinical psychology ayaa jirta laantani ee la yiraahdo clinical psychology-ga dadyogu barta fiildigana marka waa field la barto weeyaan waxay dadkani in badan ay ku takhasusaan inay xaliyaan waxa la yiraahdo behavioral problems and the mental illness xanuunada ku dhaca maskaxda kuwaasoo waliba ay keenayaan dabeecaduhu inay khaldamaan waxaas u daaweeyaan marka dadka aynkaasi oo kala si loo daaweeyo waxa la siiyo training ayaa la siiyo usually taasoo qaadanaya 3 sano in ka badan course qaadanaya ayaa la sameeyaa diyogani had iyo goor waxay aad u caawiyaan ama ay daaweeyaan minor problemska oo maskaxda bini'aadamka ama dabeecadaha yar oo qaldamay iyo cudurrada qofka ma garatay yaro disorders maskaxda kaga dhacay iyo waliba phobia oo kale way daaweyaan waa cabsida ma garatay stresska iyo waxa soo leeyahay aad baad u mahadsantihiin insha Allah isbuucan inta san qaadanayna isbuuc xiga ayaan mowduuc kale soo gelinayna insha Allah assalamu alaykum